naga daawanaysaan Warisale TV qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku daawanaysaan waxa ka mid noqonaya beesha caalamka war ka soo saartay khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya qodobada ay ku heshiiyeen janan iyo dawladda Soomaaliya oo la shaaciyay wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo gobolka Gado u tagay soo dhaweynta janan ururka jaamacadda Carabta oo iyana ka hadashay khilaafka dhanka doorashada ee Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Kenya waxay dalbatay qorshe lagu xiriyo xariyaha Dadaab oo Soomaali badan ay ku nool yihiin qodobadaas waliba qodobada arrimaha dibadda oo kamid yahay Abiy Ahmed oo sheegay in dagaalka ee gobolka Tigray ee ciidamada Eritrean ay qayb ka ahaayeen intaas waxay ayaan qodobada ugu waaweyn ee warka Risale TV markaan aynu ku bilaabnay beesha caalamka ayaa baaq ka soo saartay khilaafka dhanka doorashada Soomaaliya wali waxa Muqdisho ka taagan khilaafka ku aadan doorashada xiligeedii kadib dhacday waxaana taagan baaqyada ka soo baxaya beesha caalamka xilli magaalada Muqdisho oo wali ka taagan yahay khilaafka arrimaha doorashooyinka midowga Yurub ayaa madaxda Soomaaliya ugu baaqay inay degdeg xal uga gaaraan arrimaha uu ku gadaaman doorashada wali waxa Muqdisho sidoo kale isku hor fadhiya madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada dhanka kale qoraal ka soo baxay safaaradda Norway ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay inay ku rajawan yihiin in madaxda Soomaaliya ay si degdeg ah uga heshiin doonaan arrimaha doorashooyinka si loo qabto doorasho nabdoon shirka uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha oo dhamaaday isla markaana la filayay in shalay lagu saxiixo heshiiska doorashada ayaan sidii la filayay u dhicin afayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in si weyn ay uga walaacsan yihiin ismariwaaga siyaasadeed ee ka sii socda Soomaaliya sidoo kalena hareeyay doorashada qaramada midoobay waxay dawladda ugu baaqday in khilaafka doorashada la soo afjaro madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyadana ay si degdeg ah heshiis uga gaaraan khilaafka ka dhex taagan qodobada ay ku heshiiyeen Cabdirashiid Janan iyo dawladda Soomaaliya ayaa la shaaciyay iyadoo wafdi ka socda dawladda Soomaaliyana ay gobolka Gado ku soo dhaweynayaan wasiir Janan waxa warkaasi noo haya Cabdiqaadir Jakarta wasiirkii hore ee wasaaradda amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa maanta shaaciyay 5 qodob oo ay ku heshiiyeen isaga iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taas oo sababtay inuu dawladda Soomaaliya ku soo biiro qodobada ay ku heshiiyeen wasiirka hore wasaaradda amniga maamulka Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxa kamid ahaa inuu heshiiska dawladda federaalka la galay isagoo ah wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland inay la socdaan ciidan gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiid dagaal ah 3 in ciidankaas ay la wareegayso dawladda federaalka ee Soomaaliya in heshiiska uu qayb ka yahay Cornel Abbas iyo saraakiil kale oo gobolka Gado ku sugan kuwaas oo hore uga mid ahaa saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya in uu siyaasadda gabi ahaanba uusan isaga bixin sidoo kale Janan ayaa waxa uu sheegay in intaas oo dhan uu ku saleeyay abaaraha iyo colaadda ka taagan gobolka Gado uusan dooneynin inuu qayb ka noqdo isjijiidka siyaasadeed ee xamar ka socda waqtigaani waxaana tani ay ku soo aadaysaa xilli markaasi madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta shaaciyay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland ururka jaamacadda Carabta ayaa dhankooda waxay ka soo saareen khilaafka dhanka doorashada ee Soomaaliya ka taagan waxa warkaasi la diyaara Maxamed Cabdiraxmaan xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Ahmed Abuqayda ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo maalmahan booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Qaahira ee dalka Masar kulankaasi waxa uu Ahmed Abuqayda ugu baaqay qaybaha kala duwan ee saamileyda siyaasadda Soomaalida in ay wadaan wada xaajoodiyadooda wax ku oolka si loo gaaro isafgarad xoojinaya midnimada iyo sidoo kale qarannimada dalka Soomaaliya waxa kale oo soo hadal qaaday taageerada ururka jaamacadda Carabta oo la garab taagan yahay Soomaaliya waxaanu carabka ku adkeeyay sida ay ururka jaamacadda Carabta ay uga go'an tahay taageerada dadaalka ee dalalka Carabtu ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa wadamada caalamka ay ugu jiraan sidii ay Soomaaliya ay u garab siin lahaayeen taasi oo loogu jiro deganaanshaha iyo horumarka Soomaaliya dib u dhiska hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya dhaqaalaha iyo deen cafinta lacagaha ay wadamada caalamka iyo Carabtuba ay siiyaan Soomaaliya
dhanka kalena xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa kale ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya gaar ahaan dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada soo celinta nabadda, deganaanshaha iyo sidoo kale hirgelinta horumarka Soomaaliya. ila rasmi ah oo ka tirsan xogaynta ururka jaamacadda carabta ayaa tilmaantay in kulankaasi loogaga wada xaajooday doorka ururka jaamacadda carabta uu ka qaadan karo taageerada hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya si ay u soo gudbiyaan caqabadaha soo food saaray. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaraxyadan oo laba ah ayaa waxay ka dhaceen wadada xiriirisa degmada Balcad iyo waliba tuulada Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka dhashay qaraxyadani khasaare kala duwan. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qaraxyadan lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada Burundi ee ka tirsan AMISOM kuwaas oo ku socdaalayay wadadaasi isla markaana ay maqlayeen joogta qaraxyada. wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in qaraxyadan kadib ciidamada AMISOM ay fureen rasaas fara badan walow aysan jirin cid wax ku noqotay maadaama halka qarax ay ka dhaceen ay tahay goob cidla ah oo beeraley kaliya halkaasi ku yaalaan. al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaasi waxayna wararka ay ku qortay barteeda internetka ay ku sheegtay in ay gubtay laba kamid ah gaadiidka ciidamada AMISOM walow aysan jirin cid xaqiijisa warkaasi. wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay qaraxyo iyo weeraro toos ah oo qaarkood lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Shabeelle. Kenya ayaa dalbatay qorshe lagu soo xirayo xeryaha Dadaab iyadoo Soomaali badan halka ay ku nool yihiin. waxaa warkaasi faahfaahinaysa Raxma Maxamed. Kenya ayaa 14 maalmood u qabatay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR si ay ula timaado qorshe lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma sida lagu shaaciyay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha gudaha. Kenya waxay sidoo kale sheegtay in qorshaha xiritaanka xeryaha aanan wax wada hadal ah oo kale laga yeelan doonin. xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ayaa waxa ku sugan kumanaan qaxooti Soomaali ah kuwaasi oo ka cararay colaadaha sokeeye ee ka jiray Soomaaliya. waxaa la ogeyn qorshaha ay Kenya ka damacsan tahay arintani. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaan wali ka jawaabin dalabka dowladda Kenya ee ku aadan in la keeno qorshe lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa xilligan ka dhaxeeya khilaafka badankiisu salka ku hayo dacwadda badda oo ay keentay in dowladda Soomaaliya iyo xiriirka diblomaasiyad u jirto dowladda Kenya. markaana akhbaaraadka dibadda ee warkeena. Abiy Ahmed ayaa qirtay in dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka tirsan dalka Eritrea. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qiray markii ugu horeysay in ciidamo ka tirsan dalka ay dariska yihiin ee Eritrea ay ku sugnaayeen gobolka Tigreega kadib dagaalkii bishii November muddo bil ah ay labada dalba beeniyeen in ciidamadaasi ay ka gudbeen xadka. Abiy Ahmed ayaana u sheegay mudanayaasha baarlamaanka in ciidamada Eritrea ay yimaadeen iyaga oo ka baqayay in weerar ay uga yimaadaan dagaalyahanada gobolka Tigreega isla markaana ay ka hor imaanayeen ayna bilaaween kadib markii jabhadda xoreynta ee dadka Tigreega ee TPLF ay qabsatay xarumo ciidan oo ku yaala gobolkaasi. kooxda TPLF ayaa ahayd xisbiga xukuumadda gobolka waqooyiga Itoobiya laakiin khilaaf aad u weyn ayaa soo kala dhaxgalay Abiy Ahmed ka oo ku aadan mustaqbalka nidaamka federaalka ee Itoobiya ee ku saleysan habka qowmiyadeed iyo waliba doorka ay ku leeyihiin dowladdu. boqolaalka kun oo qof ayaa ka qaxay guryahooda Tigreega 5 bilood ee la soo dhaafay. inkastoo TPLF laga saaray xukunka Tigreega dhamaadkii bishii November isla markaana Mr. Abiy uu shaaca ka qaaday in khilaafkii la soo afjaray haddana dagaalada ayaa wali ka sii socda qaybo kamid ah gobolkaasi. Mr. Abiy oo hore ugu guuleystay abaalmarinta nabadda ma uusan qiran in askarta Eritrea la geeyay tuulooyinka oo dhan. guud ahaan waa inta warkii aad ka daawanayseen Risaale TV. nabadgelyo.